السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتنا كحرة جنة كينا هرمود تيم دمانتي سو دواada صاحبيال الضبعة وإيه برنامج كان إدين وضع أو قيس كيف فشلية قرنكا أو أدوغيدين شركدي آياتي دو دعدي إيه قبل نصر مركا أورديسي قرنكا سوماليا إنكستو tartanka ay ka qayb gashay markaas uu ahaa tartan marka lagu qabtay wadanka China tayna uu ahaa marka tartankii 11 ee marka la qabtay adduunka ka dhacay dhinac marka u fiirisid mid oo qaran oo weyn ama mid markaas xisaab weyn galaya ma ahayn at the same time wuxuu ahaa mid iyada jaamacadii wadanka ka dhisnaa maadaama ay ka socotay in ay matalayso qarankii Soomaaliya hadaba gabadha Nasro sheekadeeda xiisa badan lagu ma hayso oo in badan ayaan ka warqabnaa oo ognahay xaaladeeda si noqotay iyo sida ay wax u dhaceen ceebta ay soo jiiday iyo talaabo walba ay qaatay iyo wax walba ay sameysay ugu leeyabka badan ayaa marka waxa ay tahay sheekadan markii la isku qabsaday ee la dhahay Nasro yaa horta dirayba ama iyada marka inta uu soo kaxay qualifying soo mariyay sidaan wad ognahay wasiirkii sportska ee Soomaaliya isaga arintan gees ayuu iskaga riixay oo wuxuu dhahay anigu wax shaqo oo ku leeyahay ama aan ka ogaa ma jirin taas marka waxa cadeyn loogu helay oo been noqotay in ay Nasro iyada marka waraysi laga qaaday oo Nasr ka qaaday in ay marka afkeeda ku sheegtay oo ay dhahday wasiirka sportsku arintaa uu ka warqabay maadaama oo ogin Nasro marka ay ka baxaysay Muqdisho Soomaaliya airportka markii la keenay wuxuu taa marka la socday ambassadorka China u fadhiya Soomaaliya iyo wasiirka xigeenka marka sportska ee Soomaaliya iyo dadkii marka kale ku soo weheliyay sidaas ayayna China ku aaday taas macnaheedu marka maxay cadeynaysaa wasaaraddu inay awood arintaana mid dheer oo isku xiran inay ahayd hadaba wasiirkii sportska ee Soomaaliya ayaa hadlay oo dhahay gabadha markaas iyada hogaamisa tartanka ama ordada Soomaaliya oo la sheegay in ay tahay Nasra habrited oo la dhalatay hooyadeed waxyaalaha la yaabka jira bal meeshan u fiirsada gabadhaas tamaysa hooyadeed ayaa magaceedu wuxuu yahay Deeqa Aadan Daahir waa Nasra hooyadeed maamulka xiriirka orodka Soomaaliya yaa hogaamiye ah oo marka hogaaminaya waa Caasha Aadan Daahir oo markaas gabadha tartamaysa ee Nasra habrited laxmi ah wasiirka sportska Soomaaliya markii soo arinta isku soo riixay wuxuu dhahay warka ma haynin Nasra habrited waxa dhacday in dhahay xilka laga fariisinaya oo su'aalo la weydiinaya ilaa heer maxkamad baa la saari doona shalay ayay hadashay oo waxay dhahday waxaan anigu shaqo kuma lihi baanti oo la isku soo qabtay arintan ayaa marka waxay tahay arin aad isku qasan gabadhan ordaysay familkeeda ayaaba iyagu meeshan haystaba xiriirka orodka ee Soomaaliya ayaga madax u markaas oo waxay rabaan ka sameeyaan gabadhana sida cad waa gabar marka si xoog lagu keenay ay ahayd waxa doonto ma noqoto bal marka Caasho Aadan Daahir oo gabadhaas ordaysay habrited laxmi ah oo qofka hadda lagu eedeeyay dawladdu ay haysato bal markii ay hadashay aan isla fiirino hadalkeeda sida ay dhahday bal waa kana umada Soomaaliyeed waxaan u cadeynayaa maanta in aan anaga shaqo ku lahayn xiriirka Soomaaliyeed ciyaarafo aan dirsanin aan ugu ku lahayn hadii ay jirto wax dokumenti ah oo ka baxay xiriirka Soomaaliyeed ciyaarafo ama aniga ama ku simahayga shalay ku simahayga waxa uu wacday wasaaradda ana la soo wacay waxa la yiri ma joogtin waa maqanahan dhahay soo dir ku simahaaga ku simahayga shalay wuxuu wasaaradda ka cadeeyay wasiirka iyo agaasimaha iyo gudoomiyaha guddiga Olympic hortooda wuxuu ka cadeeyay in aan anaga wax shaqo ah ku lahayn aanan dirin aanan ka warqabin oo ururka jaamacadaha diray la yaabka marka meesha ka socda waa Caasho Aadan Daahir oo Nasra gabadhaas ordaysay habrited laxmiya oo iyadu marka gudoomiyaha xiriirka orodka ee Soomaaliya oo lagu eedeeyay in iyadu markaas hawshan ka dambeysay Nasrada si qaldan ay gabadhaas ordaysay si qaldan iyadu meesha ay ku keentay oo meeshii ay noqotay in family connection ka jiray oo si xaq daraa gabadhaas lagu geeyay meesha iyadoo aysan ahayn qof wax kale og ilaa hadana ay iyadu soo saxsan tahay Caasha Aadan Daahir marka hadalkeedu wuxuu daba socdaa hadalkii wasiirka sportska uu sheegay oo dhahay anagu arintan waxba shaqo kuma aan lahayn waxa shaqada laga qaadaya habrited oo gudoomiyaha xiriirka orodka ee Soomaaliya ayadana hawshan wadatay maamada marka hadda Caasho Aadan Daahir u jeedaan hadda eedan dhan iska wareejisay oo waxay dhahday anigu shaqaba kuma lahayn mana ogeyn bal guddiga xiriirka orodka Soomaaliya ayaa ayagu arintan watay ayaga la weydiinaya ayaga hawsha ka dambeeyay anigu shaqaba kuma lahayn mana ogeyn meesha tuugnimada iyo beenta ka socota iyo sida meel isku riixayo qof ayuu rabaa inuu wax ku riixo guddigii marka xiriirka orodka ee Soomaaliya ama jaamacadaha markaas ayagu guddi ahaan loo soo saaray oo arintan ka hadlaya iyaguna qeexay
ama caddeeyey markaas oo sheegay oo dhahay anagu arrintan mabaanaan ka war ogeyn marka horena guddi ayaan dooranay oo naloo saaray bal iyagana waa kuwaana hadalkooda fiiriya marka ururka midowga jaamacadaha Soomaaliyeed oo ah dalad ay ku midaysan yihiin jaamacadaha dalka oo ka kooban 50 jaamacadood ay matalaan jaamacadahaasi dalka ugu kala yaala dalka oo dhan 50 jaamacadood oo leh xeer iyo nidaam ay ku midaysan yihiin xeerkaas oo ay leeyihiin minimum standards oo qofka ururka uu ku soo galayo kaas oo ugu furan yahay dhammaan jaamacadaha dalka inay xubin ka noqdaan wuxuu yahay ururka kaliya ee legitimate-ka ee sharciyeysan ee haysta warqad kana haysta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ilaa hadda ma ogin anaga mana jiro urur kaleeto ay ku midaysan jaamacadaha oo ku hadli kara magacooda iyo mansabkooda midna arrinta maantay dhacday ee la salmarahayo magaalada ee idaacadaha caalamka iyo kuwa gudahaba ee hadalhayaan ee ah gabadha ardayda ee ka qayb gashay tartanka ka dhacay dalka China ururka jaamacadaha wax ay ka og yihiin ama wax ay ka warqabaan diritaankeedii iyo ka qaybgalkeedii midna ma jiro garanayo aniga meesha ay ka soo xigatay gudoomiye Khadiijo arrinkaas ay sheegtay waa arrin been abuur weeye ururka jaamacadahani ay ku leeyihiin luga ma jirto hadalkaasi waa guddiga xiriirka marka orodka jaamacadaha iyagu marka intay guddi samaysteen dadka xulayay ayagoo sheegay dhahay arrintan annaka waana laga qariyayba warna kamaan han gabadhanna markay baxday ayuun baanu ka warranay iyo ceebtii markaas ka dhacday iyo fashilkii markaas Soomaaliya soo wajahay hadalkan marka guddigan ay ku hadlayaan waa hadalka qofka iyadu markaas guddiga xiriirka orodka Soomaaliya gudoomiyaha ka ah ee gabadhan fashilka keentayna habarta u ahayd oo ay dawladdu ku eedeysay dhahday ayada ka dambeysay duqdan waxaan iyadii markii ay soo fariisatay ee maxkamadda la saaraya waana la casilayaa arrintaana waxay noqonaysaa in hawl weyn ay gasho iyada laftigeeda inta ay soo fariisatay marka videoga daawateen video aragteen ayaa waxay dhahday anu arrinta shaqaba kuma lahayn guddiga la saaray ama la soo xulay ayaa arrinta ka dambeeyay kuwan hadda aragteenna waa guddigii marka waa guddigii oo iyaguna marka caasho aadan daahir oo gabadha habarteeda hadalkii ay soo jeedisay ay rabtay inay eedes kaga leexiso ayaguna diiday oo dhahay waxani waa waxba kama jiraan waana beenteeda ayadaana ku shaqo lahayd marka qaranka yaa qiyaamay Soomaali weyn yaa qiyaamay dhibkan dhan yaa geystay wasiirka marka ciyaaraha ee Soomaaliya oo ninkaas labadii hadal ee ayaanti ku hadlay ay isdaba marayeen oo aad arkaysid marka uu hadlaayaba in hadalkiisu uusan mid saxsan ahayn oo been uu raba inuu daboolo ama qariyo ayaa sheegay in caasho aadan daahir markaas xilka laga fariisin doono isaguna eedis ka leexiyay balse meeshan hadda gabadhan wareysigeed markuu munasab wareysanayo aan isla fiirino waxay sheegaysaa wasiirka sportsku inuu arrintan ogaa kana warqabay hawshana la socday maadaama ilaa ambassadorkii Jayne u fadhiyay Soomaaliya uu airportka gabadhan la imaaday ku xigeenkiisna uu markaa la imaaday hawshana muddo ay wasaaraddu soo wadayna bal iyada marka hadalkeedna waa tanaafeeri Soomaaliya waxaan ilaahay waxaan inta aawdiin oo beenta inay isku joojisaan mideeda kale mid kale wax kala codsanaa ninkan inta beenkayga awuro yiri naagtaas inta uu reeleeda meesha ani as isku bahme haleeshayo ninkaas inta xabsada la dhigano dacwad uu qabay hay wasiirkan oo dhahay ma ogi inuu gabadha baxdayna maxaa leedahay wasiirku uu ogaa ani asma warka ku kulanabo meeshaas marka maxay inoogu cadaysay wasiirka laftigiisu arrintan iska riixaya ee diidanaa ee rabay inuu been sheego hadalkiisana looga jeeday inuu been sheegayo ama wax qarinayo in ay marka gabadhii ku cadaysay oo dhahday isagaaba arrinta waday wuuna ogaa ee waa beentiisa meesha marka maxaa cad ninka wasiirka ah oo ay ku waajibtay inuu isagu laftigiisu iscasilo ku xigeenkiisa wasaaradda sportska iyo dhalinyarada waxa ka shaqeeya laftigooda ee wada masuulada ah islaamkan gabadha habareerta ah oo iyadu corruptionkii ugu weynaaba meesha ku sameysay markaas kana dhigtay meeshii wax ay family leeyihiin dhammaantood ba horta in sharciga la mariyo oo arrintan iyo musuqmaasuqan weyn ee meesha ka dhacay in wax laga qabto waa ku waajib dawladda Soomaaliya meeshii marka hadda intaan oo video iyo arrimo iyo hadalba aan soo aragnay waxay cadayn ee markhaati noo tahay caasho aadan daahir oo gabadha ordaysay habarteed ah wasiirka sportska ee dhalinyarada oo isagu arrintan markuu hadlaayay u diidanaaba ay ka muuqatay inuu been sheegayo markii dambana damcay inuu caasho dhaho ayadaaba arrinkan u madaxa u saaro oo uu dhaho iyadaa xilka laga qaadaya oo maxkamad la saari doona isagina way ku caddahay oo meesha connection weyn ayaa ka socday gabadhan marka masaakiinta ah ee meesha la keenay ayada inay ogaatay ahayd marba hadday ceeb intaas la soo jiidiso inay kaba maqnaato ayaa ku qurux badnayd hawshan waxa soo galiyay ama iyada marka kaxeeyay oo meesha geeyay silsilad dheer oo isku xiran ay ahayd marka dhamaantoodna ku wada jiraan arrintaana ay
qof ka maqan kuma jiro lugta ay kula wada jiraan marka arintaas Soomaali weyn ay u taalaa iyo dawladda Soomaaliya waxa ka dhayso iyo hadii markaas maxkamad cadaalad oo wadankii kala qabanaysa ay jirto oo waxyaalaha ugu layaabka badnaa videogan waa nagu dheeraaday iyo gabadhan waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeysto hal eray oo aad u weyn marka oo uu leeyahay Mo Farax oo isagu laftigiisu arintan markuu arkay ka xanaaqay kana soo hadlay Cabdi Bilaan waa ka soo hadlay dad badan baa ka soo hadlay waxaan rabaa inaan idin soo daayay marka gabadh Allah u naxariistay iyadu laftigeedu ku dhimatay oo Soomaaliyana hadda korintay u tartantay meel fiican gaadhay gulno u keentay iyadoo tahriibisna badda la sheegay inay ku dhimatay Talyaaniga markii u dhuuday ama ay gaartay oo ayada gabadhaas laftigeedu ay marka dadkii Talyaaniga ahaa iyadii ay xusayaan sawir inta ay soo sameeyeen sawirkeedii iyadoo training sameynayso ordaysi waxyaalaha saasi soo sameeyeen magaca ay Soomaaliya u keentay iyo qaabka u dhimatay intaba waxun bay ahayd Soomaalina waa ka wada xumaayeen videoga gabadha marka waxaan ku soo qaadanayaa maadaama ay gabadhan dhahday Soomaali wax loo ordaba ma ahan bay dhahday Soomaali wax loo ordaba ma ahan waxa qalad ahayd ba marka ugu horeysaba in ay iyada meesha aado hadii ay sharaf iyo wanaag iyo Soomaalinimo ka hadlayso sida gabadhan hadda aan u jeedno ay marka wax weyn sameyn lahayd ani maanta Soomaali hadaan oo ordinaysan isu amaaneyn waa ku fadhiyay dad badan oo waxa la soo arkay wiilasha hadda banooni koob u keenayeen oo kulanka kala soo reebay waxa la yiri hal mar xataa kubadda ma aysan taaban dhiirigelin intee ka helayna marka عجيب أنك وحرقنا يا سومالي محمد ما أنت لما تنا نوجد دمبيسي أردك وح قرء عن قبيل لهين وحمد حلق قبص وحاجنا دقيقة يا أردك قبيل ملء ما توجسين يا سومالي محمد وحنا وحكى قبلنا ما أنت وجسين زاد عده لام يدا يا وصوت أولي قبل الصدى أي أدونكو وشرفين أما Soomaali وشرفتي الله تعالى الله محرس جنة الله سي وصو أرتين إذا هذا الكريم واد مقشين كدبنا Mo Farax wuxuu ka dhahay isna waad maqasheen marka ay qaranimo noqoto qabiilku waa qurun ma wanaagsana dadkana dambiga kulli waa wada dambiilayaal dambi qaran ay galeen waa khayni wadan waxa la dhaho qaranimada ay ku xadgudbeen calankii ay ku xadgudbeen Soomaali ay ku xadgudbeen kulli wixii xukun ay leeyihiin waxa wanaagsan in la marsiyo videogan waa lagu dheeraaday halkaas ay kaga tagaya video ku xigay intaan ku kulmi doono waxaan leeyahay nabad galiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.